hantida ugu weyn aad haysataa maaha gurigaaga maaha gaarigaaga maaha lacagtaad haysatid ee waa hamigaaga haddii aad hamadaada weydid wax kastoo dhan waad weydid haddii aad hamadaada dhistidna wax kastoo dhan waad heli haddii aad bari luus karaysid oo wax oo dhan bay tagaan way fududahay oo hamigii aad ku dhisi lahayd leedahay waad dhisi karaysaa waa kii Abwaan Shubal ahaa hankaa la isku dhaafay dadkuba haybta guud siman qof waliba hooyaa dhasho waa la soo habayay mise waa la kala horeeyaa heerka nololeed muuqaalka waxaan igula wadaagi doonaa 7 waxyaabood oo dila hamigu waa hantida ugu qaalisan aad haysatid haddaad luus karaysidna wax kastoo dhan waad luus karaysaa gurigaaga waad waayi kartaa lacagtaada waad lumin kartaa gaarigaaga waa kaa xumaan karaa wax kastoo dhan waad tegi karayaan laakiin as long aad hami leedahay ama himada leedahay himadaadaas waxay ku siinaysaa inaad waxaagaasoo dhan soo ceshan karaysid sabab ayuu mawduucan muhiim u yahay ambition inaad yeelatid ama inaad noqotid qof ambition leh maanta dhalinyaradeenii jinsiga waliba kuwii ugu dambeeyay noo soo baxay waxay noqdeen dad aanan himad lahayn dad iyagoo fursad helay iyagoo internet helay anagu xilligayga kale dee qof markaan kacaynay aduu 12 jirada ahayn way adkeed allahum sa'aan qofku inuu suuqa u casho tago oo ka cunteeyo maalinka kubad soo ciyaarneen suuqa tagno maalinka aan ku guuleysano malaha dhowrkii bilood hal mar baan suuqa tagi jirnay oo ka soo cunteen jirnay cuntadan ka cuni jirnayna waxay ahayd harikoogaas ma ka cuni jirnay andan maalinkan harikooga cunno waxa ugu fiican in leeyahay maybe hadda dhici kartaa dhalinyarada ama wadankii ay joogaan inkastoo la isku duruufahayn inaad allahum sa'aan waxyaabo fiican hesheen teknolojiyada hesheen income ina soo galayo ways kale Soomaalidu hadda waa xilligay ugu dhaqaalaha fiicneed ayaa la oran karaya waayo wadankii waan tagtagaa waan eegaasay wax kala socdaan iyo intiina kale de Europe iyo Mareykan iyo meelahan ku nool westernka ku nool waxa la yiraahdaa qofka 1900 iyo 50 noolaa ee ugu hantida badnaa xilligaa joogay waxa ka handi badan maanta qofka first world adduunka jooga marka muuqaalka waxaan idinku wadaagi doonaa 7 arrimood oo dili karaya himadaada arrinka ugu horeeya dadkaan himada lahayn sababtaan taa u leeyahay haddii ay imika saaxiibada yihiin dad wax akhriya dad himad leh dad wax isku dayaya dad wax sameynaya adiguna waxaad noqonaysaa qof wixii sameynaya oo same helaya marka dadka kugu hagaarisan siday u fikirayaan adduunkay ku dhex nool yihiin maalin dhaweyd baa waxaan sheekaysanaynay allahum sa'aan ustaad mubaarak haadi oon ka sheekaysanaynay mawduucan allahum sa'aan himada ustaadka khayr Allah siiyo deeto waxaan isku soo hadal qaadnay allahum sa'aan maxaa qofka himadiisa siinaya maxaa keenay qofku inuu adduunkiisa ka baxsan u arko waxyaabaha aadka u soo baxaya allahum sa'aan aadka u soo baxaya waxa weeyaan dadka kugu hagaarisan ama himadaada dili karayaan ama himadaada sare u qaadi karayaan marka arrinka koowaad taayna ka fiirsatid saaxiibadaada ku dhow miyay yihiin dad wax raba mise dad wax sameynaya miyay yihiin dad allahum sa'aan himad leh oo himadaada aad ka dayanaysid marka haddii aanad adu saaxiibadaada rabtay aanad helin waa inaad saaxiibada kugu hagaarisan aad eegtaa saaxiibkan ma yahay saaxiib ilaahay ku dhaweynaya saaxiib masaajidka kugu xidhaya saaxiib jiimta aad isku raacaysaan saaxiib ma yahay wax akhrisaad isku samaynaysaan saaxiib ma yahay ahdaaftaada kugu bushkareynaya saaxiib ma yahay allahum sa'aan runta kuu sheegaya oonaan runta kala cabsanayn saaxiib ma yahay aan waxaasoo dhan waa waxa ku siinaya allahum sa'aan rasuulkuna waa kii lahaa calayhi salaatu wasalaam midkiinba midka kale wuxuu leeyahay saaxiib diintiisa allahum sa'aan ama qofka ugu dhow diintiisa marka haddii xaggaa la gaarsiiyey qofkii aad saaxiibka ahaydeen in diintii xataa la kala qaadi karayo maxaad u malayn karaysaa waxyaabaha kale oo dhan marka si aad himadaada u korisid waxaad u baahan tahay inaad isku hagaarisid dad himo leh oo meel u socda arrinka labaad ee himadaada dili karaya waxa weeyaan waa social media malayacniga iska jirsid social media especially muuqaalada yaryar ee shortska ah oo waxyaabaha dila iminka imsa muuqaal baad daawatay TikTok aad gashid oo 200 muuqaal daawatid oo maanta sare iyo hoos u socotid waxaad ka xasuusanaysid ma jirto marka inaad iska joojisid muuqaalada shortska intaad iska yareyn karaysid inaad iska yaraysid midda kale doorasho ma lihid aad waxaad dooranaysid muuqaaladaasina waxay dilayaan himadaada waxa ku soo galay waxyaabaha aad jeclaysanayn waxyaaba dilaya allahum sa'aan qiyamkaaga iyo valueskaaga dilaya waxyaabahaas oo dhan inaad iska ilaalisid marka taasina waa qayb ka mid ah waxyaabaha dili karaya himadaada arrinka saddexaad ee himadaada dilaya waxa weeyaan waa dib u dhigashadu waa labo kala baxdaa dib u dhigasho wax mid fiican oo tahay inaad dib u dhigatid iyo dib u dhigasho xun dib u dhigashada fiican waxa weeyaan waa inaad dib dhigatid waxyaabaha yaryar ee maalayacniga dib u dhigashada xunna waxa weeyaan inaad dib u dhigatid waxyaabaha noloshaada hore u dhaqaajinaya marka markasta ka fiirso isweydii waxaan dib u dhiganayaa miyuu yahay ahdaaf waaweyn oo leedahay baa macquula inaad leedahay macquula niyo jeclaan lahayaa inaan YouTube channel bilaabo jeclaan lahayaa inaan xirfad barto jeclaan lahayaa inaan qofkaan noqdo
jeclaan lahaya taasina mid maaha mid ku imanaysa damoor aad hore u bilowdid damoor wixii uu ku fududaanay marka dib u dhigashadu waa waxyaabaha hanka dila qofka ay tahay inaad iska ilaalisid arrinka kale isna himada dila waxa weeyaan inaad ka cabsatid fashilka iyo guuldarrada iyo guushu waa haan waa labadan qacmood qacantan iyo qacantan ayay tagaan marka inaad ku faysid always waad ku faysaa allah ta'ala nothing worse first time barla maalinkaad rabtid inaad xirfad baratid maalinkaad rabtid inaad luqad baratid maalinkaad rabtid inaad wax samaysid maalin dhaweyd sheeka niga sheekeynaya I think channelkayga kale luqadda ingiriishka aan kaga hadlayay ayaa muuqaal xagan baa soo fadhiistay deeto muuqaalka Maxamed diyaari xataa si randoman ayaan soo geliyay marka in badan baan rabay inaan channelka ingiriishka bilaabo oon communityga ingiriishka galo qasab ma aha inuu luqadeeda perfect tahay muuqaalkii markaan duubeen meeshii geliyay ismaail hayn intaas baa daawaday maalinkii ugu horeysay 2-3 qof aa daawaday kaliya waxaan lahaa welcome to my channel deeto dad badan buu geeyay dadkii igu wada xidhnaayay social media bala barkin badan inaad aragteen baa macquula deeto dad badan baa commentiga waxay ku soo qorayeen san miyaa luqadda ingiriiska ugu hadlaysaa yaa lagu leeyahay fiidiyoga delete garee waxaga kala samee ana fiidiyoga sababtan u sameeyay waxay ahayd inaan jabiyo cabsida ah inay wax ku hor istaagaan ama in dadku waxay ka waranayaan marka mararka badan oo himad aynu leenahay ama waxaynu rabnaa inaynu sameeyno waxyaabaha inay istaajiyo waxa weeyaan dadka kale maxay naga oran doonaan guuldarada say la yarki doonaan maxaan sameyn doonaa himadaada waxyaabaha daliyo taas marka anigu waxaan rabay inaan channel bilaabo luqadda ingiriiska ku baxa aanan adduunka luqadda ingiriiska aan galo this is my decision allahumma ta'ala luqadda ingiriiska haday noqoto xirfadaan bixinayo especially dadka muslimiinta luqadda ingiriiska ku hadla qasab baa inuu ingiriiskayga perfect yahay qasab maaha waayo uma dhalin at the age of 20 ban wadankii hooyo ka yimiday Yurub baan yimiday meelaha hoosan ka soo shaqeeyay xirfadaan isbaray qofkaan ahayba maanta iska dhigay proud allahumma ta'ala marka haddii intaasoo dhan soo qabtay I can hadda allahumma ta'ala I can go to Allah ta'ala English speaking community waan gaari karaya marka guuldarrada ka cabsan qof kasta ayba u cabsadaa laakiin waja hadda ka cabsanaysa Allah ta'ala fiidiyogaaga ugu horeeyo xumaad that's no problem fiidiyogaaga ugu horeeyo fiidiyogaaga boqolaad hadda maanta fiidiyogana daawanaysid iyo fiidiyogaaga ugu horeeyay 2021 markaan duubay same ahayn qasabna maaha marka safarku wuxuu ka bilaabmaa meeshaas ha ka cabsan guuldarradu waa waxa ku dhisaya guuldarradu waa waxa ka dhigay qofka tahay guuldarradu waa waxa ku ciseynay guuldarrada aad maanta ka cabsanaysid ama guuldarrada maanta gaaraysid waa waxa berito la ku hadli doona and the reason why ay mar kasta Allah ta'ala muhiim u tahay meeshaad wax ka bilaabisin inay muhiim yihiin meeshaad wax ku dhameynaysid inay muhiim tahay arrinka kale isna himada dila waxa weeyaan kalsooni la'aanta kalsoonidu waa hubka ugu weyn aad haysatid inaad naftaada ku kalsoonaatid kalsoonidaada inaad dhistid waxyaabaad kalsoonidaada ku dhisi kartid waxa kamid ah inaad hadaf haysatid inaad hadafka yaryaraysatid inaad hadafka maalin kasta wax ka samaysid kalsoonidu maaha wax ku yimaada motivation inaad muuqaal motivation daawatid kalsoonidu maaha wax ku yimaada erayo intaad hortagtid Allah ta'ala muraayadaha aad ku akhrisid kalsoonidu waxay ka timaadaa shaqadaad qabatid ayaa ku siinaysa kalsoonida markastood wax samaysid markastood wax isku daydid markastood kuftid markastood kacdid waa markastoo aad koraysid marka kalsooni darradu waa waxyaabaha himada dila qofka naftaada inaad ku kalsoonayn naftaada ilaahay qof uu ku ciseeyay unique buu ka dhigay adduunka buu ku keenay wada caafimaad qabtaa lixaad baa leedahay dad Allah ta'ala ka hooseeya jira dad ka fursada yar baa jira dad waxaad haysatay aan haysan baa jira marka inaad naftaada ku kalsoonaan weydo oo ilaahay Allah ta'ala aad malaxoon ka filatid idgana waa waxa aad ku luus gareyn salaam ta'ala marka kalsoonida ka shaqee kalsoonida soo shaqeyn karaysa ahdaaf dhigo fadhiiso ahdaaf qoro ahdaafta yaryarayso maalin kasta wax ka samee jimka tagtid waa hadaf muuqaalka duubtid waa hadaf buugad akhrisid waa hadaf waxa yaryar sameynaysid ba compound sameyn doona muddo 5 sano 7 sano 8 sano you look yourself back and you say wow I did it man ayadoo lan doonta marka arrinkaasina waa arrin kale oo kalsoonidaada ku dhisi karaysid arrinka kale isna kalsoonidaada ku dhisi karaysid waxa weeyaan in wax kasta lagaaga horeeyo ama in wax kasta cid ay kaaga horeyso muhiimadu maaha inay wax kasta lagaaga horeeyo wax aan cid hore u sameeyo waa isku day karaysaa waxaynan cidi hore ugu fikirin waad ku fikiri kartaa Albert Einstein baa wuxuu oran jiray imaginationka ayaa ka awood badan aqoonta caadiga waayo wax kasta maanta haysano haddii kameradan noqoto qof baa sawirtay haddii noqoto dayax gacmeedka kacay qof baa sawirtay marka ha isku dayin wax kasta inay cidi kaaga horeyso haddii aan cidi sameyn wadadaas haddii aan jeexnayn adigu jeex wadadaas banee dad hadda wadada banaysid you will make it happen marka ka cabsan in cidi kaaga horeyso ama cidi kaaga horeyso ama cidi kaaga horeyn just try arrinka toddobaad ee ugu dambeeya ee kalsoonidaada ku dhisi kartid waxa weeyaan goobtaada raaxada meel yar taqaanid in the last 3 years I was travel over
a lot of countries meelo badan baan tagay meelaha badan aan tagay marmarka qaarkood magaalada saaxiib ku lahayn family ku lahayn cid aan ku lahayn ayaan months joogay and it built my confidence Allah musta'an marmarka qaarkood dhalinyaro inaad soo tahriibtaan qasab maaha oo tahriib waa dhib badan yahay Allah musta'an laakiin the more aad magaalada joogtid aad bedelan karaysid ama meesha aad laga yaqaan aad bedeli karaysid amar fursad aad helisid isku day inaad magaalooyinka tagtid haddaad tuulo yar joogtid tuulada isaga tag ay fursadaha way yar yihiin haddaad meel yar joogtid meel ay fursadu yaalaan Allah musta'an isku day marka goobtaada yar raaxadeed la qabsatay isku day inaad Allah musta'an ka tagtid haddii aynad environment-kaas una ku banaanin isku day inaad environment-ka wadadeed ku samaysan lahayd ma hayna tahriibka dhiirigelinayo tahriibka wax aad u dhib badan wax mustaqbalkaaga iyo qofka tahay Allah musta'an burburin karaya waa wax aad naftaada ku waayi karaysid dad badan ku weynay maanta laakiin magaalooyinka waaweyn tag magaalooyinka shaqadu ka jiraan tag gobolada Afrika tag shaqo ka bilow Nairobi aan ku noolaan jiray dhalinyaro badan oo waxaan sheekaysanay iyagoo waxba haysan imid Nairobi business ka bilaabay business uu kala kacay Allah musta'an Uganda tagay Tanzania tagay meelad badan tagay wax badan ka sameeyay qasab maaha in Europe iyo Mareykan la yimaado laakiin isku day inaad caalamka gashaan oo caalamka la falgashaan magaalada yar ee joogtid iyo meesha yar ee joogtid wax badan Allah musta'an haddaad wadanka dhexdiisa wax ka qabanaysid Allah musta'an wax ka dhex qabo laakiin comfort zone-kaaga waa inaad si joogta uga baxdaa waa inaad si joogta wax soo daydaa waa inaad si joogta u tiraahdaa waxaan rabaa inaan sameeyo waxaan rabaa inaan tago arrimahaas waa arrimaha hamigaaga dili karaya ama hamigaaga dhisi karaya insha Allah hadii la muuqaalo kale inaga soo sameyn doonaa hadii la yiraahdo muuqaalkan waa qayb ka mid ah buugayga soo bixi doona insha Allah hadii la yiraahdo dhawaan ayaan kaga hadlayaa sababtan toddobadan waxyaabaha inila wadaagay waxa weeyaan saxaabi Xudayfa ibn Yaman ayaa markasta rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu weydiin jiray waxyaabaha xun ee Allah musta'an ay tahay inuu iska ilaaliyo marmarka qaarkood waxay tahay inaad samaysid waxa ka muhiimsan waxay tahay inaad iska ilaalisid dhamaantiin waxaan rajaynayaa guul iyo gobonimo dhamaantiin waxaan u baahanahay qof ina dhiirigeliya ina challenge kareeya inagu taageero waxyaabaha aynu rabno haddii aanad adigu qofka helin adigu qof noqo haddii aanad adigu qofka helin adigu gaar ahaan naftaada noqo see you soon